السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الميول بعدين دافيدا كجوكتان مقعي محمد سعد مستر 9 يوتيوب كاga daawanisna waa Muhammad Saacid Master 9 fadlan ku soo dhaw channelkayga hadii aad ku xubtahay subscribe dhig oo kamid noqo family Master 9 waxaan kala soo dhaweynaa saaxiibada quruxda badan ee nagu soo beeray shalay iyo maanta iyo darhadba waxaan leenahay soo dhawaada oo ka soo mid noqda family Master 9 waxaad ku soo dhaweyn doonaa gacmo furan iyo qalbi nadiif ah waa mahadsantihiin kamid ahaanshaha family Master 9 soo dhawaada waxaan kaloon ka codsanayaa muuqaalkan inaad leegtiisa badisaan si muuqaalka daawashiisa u badato way codsitaas mahadsanidin maantay muuqaalka ay noo haayo waxay tahay muuqaal aniga shock ugu riday runtii muuqaalkaas wuxuu yahay in muuqaal cajiib ah waxaan ku arkay Facebook gaar ahaan qaybtayda aan baraha bulshada ku leeyahay iyadoo la isdhex marayo muuqaalkaas runtii waxay ahayd gabar dhigatay xalfad xalfadani ma ahan xalfad aroos xalfadani ma xalfad qalin jibin xalfadani ma ahan xalfad dhalasho xalfadani ma xalfad xiteen guurkii waqtigii la isguursaday maalintii oo kale la taagan yahay hadana xalfadii la dhigto ma ahan runtii xalfadda waa xalfad furiin waa wax aniga ilaa hadda aamini la ahay والله وامين الله سبحان الله حواي وحول باسكي ما فهمتين يقدر على النقطه والله انا مره دام قصل ما امسي كره حواي مقالك اي هرتاغن ويابنا marka arko iska qoslaya gabar dhigatay xalfad furiin oo markii la soo furay xalfad dhigatay wixii ku soo maray kamayro horta intaan idin kaga sheekeeyay muuqaalka ila soo daawo kadib bal aniga iyo adigu aan reaction ka bixin muuqaalkaas baad tirid daawasho wanaagsan taban xalfadan waxaa u dhigtay waxaan waay kameero wuxuu ku soo maray xaqiiqatan markaan ka hadlo qisooyinka xalfadan oo dhigo waxa kamid ah ma idin ku badi doonay hadalka awalan in aan ahay isha kaliya shakhsiga kaliya ma garanaysaa qalbigiisa waxyaabo badan dareemayo mar walbana aan ku faraxsanahay qisooyinka faraha badan aan nolosha kala kulmaayo mar walba oo nolosha wax kala kulantid waxa ku siyaadayo adkeen iyo inaad ka sii qaadid cashiro badan aan nolosha ka sii baratid aad ka sii qaadid firfircooni iyo wanaag midda kaleeto xumaan iyo samaan wixii laga bartaa nolosha waxay horumar u yihiin dhiirigelin iyo horu socod ma ihi qof ma garanaysaa u jooji doono horay yani qiso jecel ayaa loo sameynaya xalfadan burburtay 10kii bishii Oktoobar bishii Oktoobar 28kii Oktoobar bishii 10aad 2020 waxaan ku faraxsanahay nolosha cusub ee caawa ii bilaabanayso waa 20kii November waxaan ku jirnaa sanadkii weli muusa dhamaanin waa ilaahay mahadiis tan iyo mid kasii qurux badan waa rajaynayaa haddii aan intaas ka soo gudbo waxaa jiro baraambur aniga aan iskugu talagalay asxaabtadana iga codsadeen inaan qaado caawa halkan aan ka qaado haddii aan baraamburkaas idin qaado wallahi xaqiiqatan farxad ayaa la jareenayaa jawigii dhan garanaysaa wuu isbedelay waxaan rabaa abwaanad mihi laakiin waa laygu xantaa inaa abwaanadahay soo marka waxaan rabaa inaan baraamburka halka ka qaado dhegeysta wacan dhammaan asxaabtani yaa liigu quslin biliis baraamburkiya gabayga garahada layga xiray waxaan ka soo gaaray magoodonta hooyadeey imaa cidlaynaya rabbiga yacsiisahay cadaabanayhi ma jabinaya caadilkey codkaan aniga iskale waan ku ciir baxaa codsiintii keensatana waanu cuurinayaa caloosha intayga nacdeey careysane cidna ka hibaysan maahayee cindiga ku haay cafisna waadiga tiin caway wale waa mahadsantiin markii looga soo gudbo waxaan u malaynayaa daawada in aad muuqaalka soo daawatay horta muuqaalkan waa muuqaal cajiib ah gabadhan xalfadan iyo qarashkan iyo labiskan iyo waxaan dhan waxay u samaysay in la furay in ay anaga iyo adiga na ogeysiiso horta waan ogaanay in lagu furay horta laba qodob horta aniga ilaa hadda waa ku fikiray kow gabadha maxaa ku kalifay in ay muuqaalka noocaan ah mise xalfada noocaan ay furin u samaysato labo gabadhani ninka guursan doona hadhow boog ayay ku noqonaysaa ayada
way ninka guursan doona hadhow mustaqbalkeeda labaad xitaa ma u maleynaa si fudud inay ku heli doonto sababtay tahay nin walba wuxuu leeyahay adiga tii xalfadda furinka dhiganaysa mar labaad haddii aan ku furo xitaa xalfad kale ay u dhiganaysaa marka uu adag taan u maleynaa si guurkeeda labaad xitaa uu awood u ku yeesho macnaha uu ku imaado midda kaleeto xalfadda sababta oo dhigatay horta dadaa kula taliyay fikradan kaligeed ma lahan sida aaminsanahay laakiinse dadka kula taliyay waxay ahayd oo ay qurux badneed in gabadha ay dhahaan waxaaga hoos u mayro waxaaga laabtaada ku hayso waayahaaga laabtaa lagu haystaa laakiin in aad banaanka soo dhigtid oo xalfad aad samaysatid oo qutra oo banaankaas aad keentid qalad weyn ahayd runtii markii laga hadlo waana ceeb midda kale dumarkeena quruxda badan wanaagsan dhaqankaas anaga sal iyo raad iyo diin midna toona uma lihin laakiin gabadha waa dumar wayna fududaatay waxaana u rajeynayaa haddii ay muuqaalkiikan daawan doonto in ay falkan mar kale aysan ku kicin waxaan u rajeynaynaa anigii idinkaba gabadhaas in ay guur wanaagsan ay ku degto aan furin dambe ka dhicin in ay ilaahay u sahlo waxaan u maleynayaa muuqaalkan in uu noqon doono kuwaana qaadasho waayo waxaan usoo dhigay muuqaalkan waxay tahay aniga adiga inaan kuwaana qaadano ninka raggaan uu samayn kara xalfad inuu dhigto dhihi karaa wixii hore ka mayro naagtiyan fura xalfad u dhiganaya gabdhaheena way samayn karaa marka muuqaalkan wuxuu noo yahay tusaale aniga adigaba in aan ku tusaale qaadano fadlan ka iska ilaali noloshaada khaaska ah inaad banaanka soo dhigtid waadna ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan aad aan idinkaga mahad celinaya asxaabta cusub ee nagu soo biirtay waxaana mar labaad kugu celinaya muuqaalka inaad ka badisaan sida uu u bato daawadashadiisa rogcadaagii wuu soo rogaa celiyay si fiican odagaa loo soo dhaweeyay waadna ku mahadsantihiin